Asalaamu calaykum. Soo dhawaad. Haddii aad janaan ku cusub tahay, magacayga waa Dr. Yaaber. Maanta insha Allah tacaala waxaan ka hadlaynaa xanuunka imaado xilliga galmada. Xanuunkan runtii waa xanuun fara badan ku hayo intuu badan dumarka, laakiin wuxuu ku dhacaa ragga iyo dumarka labadaba ku dhacaa, laakiin dumarka ayuu badan yahay. Xanuunkan marka waxaa sababi kara waxyaabo badan, laakiin wuxuu kala qaadaynaa laba qaybood. Qaybta koowaad waxay noqon doontaa waxaa keeni karo waxyaabo khuseeyo xagga qaybta hore ee xubinta taranka dumarka. Sidoo kale waxaan kala qaadaynaa inay xanuunka dareento qaybta gudaha ee xubinta taranka. Marka laba qayb ayaan u kala hadli doonaa marka causes-kan way kala duwan yihiin. Okay? Waxaan ka bilaabaynaa marka qaybta hore ee xubinta taranka, qaybta ugu soo horeysa inay xanuunka dareento. Maxaa keeni karo? Waxyaabo badan ayaa keeni kara marka. Waxaa ka mid ah in uu yaraado hormoon la yiraahdo estrogen. Hormoonkan inta badan wuxuu qaas u yahay dumarka ayuu qaas u yahay. Waxaa dhacaysa marka qaarkood marka hormoonka inuu yaraado. Maxaa sababaya marka hormoonka inuu yaraado? Waxyaabo badan ayaa sababaya sida inay gabadha goosay xilligii caadada, inay maamada gaartay da'dii ay joojinaysay dhalmada. Maxaa imaanaya marka? Waxaa imaanayo in uu yaraado hormoon la yiraahdo estrogen. Estrogenkaas hadduu yaraado marka waxaa imaan karta maamada in xagga hoose ay ka dareento qaleel. Marka ay adkaato xilliga galmada in ay galmo sameyso ay xanuun dareento. Marka maxaa kaloo keeni karo? Waxaa kaloo keeni karo maamada inay tahay maamo nuujinayso. Maamada hadday nuujinayso hormoonkan estrogenka uu yaryahay. Marka waxaa imaanaysa marka ayadana in xagga hoose ay ka dareento qaleel, ayadana markay sameynayso galmada ay aad u xanuunsato. Waxyaabaha kaloo keeni karo waxaa ka mid ah inay isticmaasho maamada daawooyin qaar sida daawooyinka dhiigkarka, daawooyinka antidepressants loo yaqaano, iyo waxyaabahaas inay isticmaasho. Marka ayadana waxaa imaan karto inuu xanuun ku imaado. Okay? Maxaa lagu xalin karaa marka? Waxaa lagu xalin karaa wax kale ma ahan. Waxaan siinaynaa maamada kareemo. Kareemadaas ayay isticmaali doontaa, hoos ayay marsan doontaa. Marka xanuunkii wuu ka tagi doonaa. Waa easy saan u maleynayo waa fahanteen. Wax dhib ah ma keenaa. Midka labaad wuxuu noqon doonaa infection. Infection wuu keeni karaa xanuunka galmada. Khaasatan urinary tract infections la yiraahdo oo ku dhaca xagga hoose. Waxay keenayaan in ay dareento maamada galmada. Lambarka saddexaad waxaa keeni kara wax la yiraahdo vaginismus. Vaginismus waxaa la yiraahdaa in uu adkaado. Inuu adkaado vaginal wall-ka in ay dhacdo inuu adkaado. Marka hadduu adkaado maxaa dhacaya marka? Ama contraction uu sameeyo. Hadduu contraction sameeyo micnihiisu waxaa waaye xilliga galmada waxay dareemi doontaa xanuun ayay dareemi doontaa. Okay? Marka asina wuu keeni karaa. Waxyaabo badan ayaa keeni kara sida emotionally. Gabadha hadday tahay habeenkeeda ugu cusub guurka, hadduu yahay habeenkeedii koowaad, runtii emotional ahaan gabadha waxaa laga yaabaa inay maskaxdeeda ay aad iskugu furan tahay. Ayadana way keeni kartaa inay emotional ahaan habeenkaas oo kale ay ka qaaday. Sidoo kale waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah in gabadha ay ku dhacday wax la yiraahdo rape ama xoog. Haddii gabadha hore loo soo kufsaday ama gabar soo aragto waxyaabo oo kufsi ama wax runtii ayadana waxay tahay waxyaabaha saameyn karo oo dhibaatada ku keeni karo markii lagu jiro galmada. Kaas waa markii aan ka hadlayno qaybta hore. Laakiin waxyaabo waxaa jira oo keeni kara qaybta gudaha xanuun inay ka dareento sida cudurro qaar inay keenaan. Cudurro ayaa inta badan u badan. Cudurradaas waxaa ka mid ah in wax la yiraahdo endometriosis oo ah wax ku daharan tissue ku daharan uterus-ka ama uterine wall-ka in ay growth ku sameeyaan meelo kale. Sida fallopian tubes iyo ovary. Waxyaabaha kale oo ka mid ah waxaa ka mid ah irritable bowel syndrome. Waxyaabo waxaa keeni kara marka oo disease ayaa keeni kara. Marka gabadha waa muhiim inay aado isbitaal. Waa khasab dhakhtarka ayay u tagi doontaa. Dhakhtarka khuseeyo. Markay u tagto dhakhtarka wuxuu ku sameyn doonaa examination. Iyo sidoo kale wuxuu diri doonaa lab investigations. Kadib dhakhtarka wuxuu go'aansan doonaa marka laba shay. In hadday yihiin waxaan psychological ahaan ama maskaxiyan ahaan in gabadha loo daaweeyo, maskaxiyan ahaan in loo daaweeyo. Haddii ay noqoto marka inay keeneen waxyaabo cudurro ah iyo waxyaabo qaarne waxay imaanaysa marka in daawo gabadha lagu daaweeyo oo daaweyn la soo qoro. Dhakhtarka ayaa go'aan ka gaaraya marka waxyaabaha sababay iyo qaabka ugu hortagi karo.
waa mahadsantihiin. Waxaan rajeynayaa inaad kala fahanteen labada qayb aan ka hadalnay waxyaabaha sababo. Intaan ku kulmi doono next video. Thank you so much.